jasiiradda masaska waa meel uusan qof bini'aadam ku dhiirin karin inuu cagta dhiga. Maxaa ka taqaanaa jasiiradda masaska ee ku taala dalka Brazil? Maanta muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa Snake Island oo ku taala dalka Brazil. Halkan waa kanaalkeena cusub ee fahamka nolosha. Waxaan ku soo gudbinaa xaqiiqooyinka iyo xogta caalamka. Subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada xiga. Jasiiraddan waxay 33 kiiloomitir u jirtaa xeebaha gobolka São Paulo ee dalka Brazil. Baaxaddeedu waa qiyaastii 43 hektar. Inkastoo ay u muuqato meel qurux badan oo cagaar ah, haddana ma jiro qof degan. Sida ay saynisyahanadu aaminsan yihiin, qiyaastii 11,000 oo sano ka hor, heerka badda ayaa kor u kacay, taasoo jasiiraddan ka goysay dhulweynaha Brazil. Waxaa halkaas ku go'doomay noocyo ka mid ah masaska, kuwaas oo muddo dheer kadib isku beddelay nooc gaar ah oo aan meel kale dunida ka mid ah laga helin. Makhluuqa jasiiraddan ka dhigay meel laga cararo waa maska loo yaqaano Gold Lancehead. Waa mas midabkiisu yahay dahabka, dhererkiisuna gaaraya ilaa 70 sentimitir. Waa maxay sababta ka dhigtay suntiisa mid ka adag ama ka khatarsan masaska kale? Maadaama jasiiradda aysan lahayn xayawaan dhulka socdo oo masku cuno, Allah wuxuu ku galladaystay karti uu ku ugaarsado shimbiraha. Si uu shimbir u qabto, maska wuxuu u baahan yahay sun aad u xoog badan oo isla markiiba cuuryaamisa shimbirta ka hor intaysan duulin. Sunta maskan waxay 3 ama ilaa 5 laab ka xoog badan tahay sunta masaska kale. Waxay awood u leedahay inay dhaliso dhiigbax gudaha ah ama inay dhalaaliso hilibka bini'aadamka. Cilmi baaris ay samaysay dowladda Brazil waxay sheegaysaa in 1 mitir oo 2 jibaaran uu ku nool yahay ugu yaraan hal mas, taasoo micnaheedu yahay meel kastood cagta dhigto waxaa suuragal ah inaad masku istaagta. Haddii aad intaas soo gaartay, aan ku wada salino xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dowladda Brazil waxay si adag ugu mamnuucday qof shacab ah inuu caga dhigo jasiiraddan. Kaliya ciidanka badda iyo saynisyahanada fasaxa gaarka ah haysta ayaa loo ogol yahay inay tagaan sanadkii hal mar si ay u hubiyaan nidaamka deegaanka. Inkastoo ay jiraan sheekooyin dadka looga cabsiyo, xaqiiqdii waxay tahay in horaantii qarnigii 2 jasiiraddan uu deganaa qof ilaaliye ka ahaa nalka haga maraakiibta. Sida la wariyo, naftiisa iyo tii qoyskiisa waxay ku halaagsantay kadib markii masaska ay ugu soo galeen gurigooda. Tan iyo sanadkii 1920, nalka hagaha maraakiibta ee jasiiraddaas wuxuu u shaqeeyaa si iskiis ah. Mana jiro qof bini'aadam ah oo ku dhiirin karo inuu halkaasi habeen seexdo. Ugu dambeyntii, Snake Island waa markhaati cad oo muujinayso awoodda Allah iyo sida makhluuqaadka ula qabsadaan deegaanka loo qadaray. Inkastoo ay tahay meel dhimasho ah, haddana waa qayb ka mid ah dheelitirka dabeecadda u baahan in laga fogaado. Saaxiib, haddii intaan la soo gaartay, fadlan akoonka subscribe video like saar noona sii share garay mahadsanid.